wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa sheegay in 3 arday oo reer Soomaaliland lagu dhaawacay midigale oo ka tirsan degmada Badhan. Axmed Maxamed Diiriye warbaahinta kula hadlay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ardaydaasi ay muujinayeen dareenkooda ka hor intii aan la dhaawacin. Waa sidoo wasiirku hadalka u dhigay. Ujeedada shirka jaraa'id aan u qabanay waxay ku saabsan tahay badbaadada caruurta gaar ahaan kuwa iskuulada dhigta ee ardayda ilaa iyo marka laga soo bilaabo ku jira malcaamada ama qalin ababka iyo meelaha la yiraahdo KG-ga ilaa iyo kuwa jaamacadaha badbaadadaas waxay ka bilaabaysaa mid uu qof waxyeello u geysanayo mid bas iyo gaadiid u geysanayaan mid ay suurtagal tahay dad iskuulada ka shaqeeyaaba inuu geysan karo ama qaab shil ahba uu ku gaarsiin karaa ama ardaydu laftigoodu isgaarsiinayaan horta talaabo adag bay wasaaradda waxbarashadu ka qaadaysaa cid kasta oo arday meel isugu keenay oo wax loo dhigayo halkii wax dhigista ay ka qayb qaadan lahaayeen qof walo iska daar Soomaaliland oo bini'aadaniba ay ahayd inuu ka qayb qaato in uu waxyeello u geysto sharciga hay'adaha sharciga oo la kaashanayna iyo ciidamada booliiska maxkamadaha cid kasta oo xitaa ciidanka qaranka hadii gaadho cid kasta oo sharcigu ugu siiyay awood anagoo la kaashanayna in aan qofna aanu ku nabadgelayn intuu caruur iyo arday waxyeelo ilaahayna anagoo tala saaranayna marka koowaad sidii la sheegay maanta waxa iskuul ku yaala midigale oo bariga gobolka Badhan ku yaala halka u dhow xuduudda Puntland iyo Soomaaliland u dhaxaysa ama Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxaysa aan idhaahdo ayaa arday lagu dhaawacay 3 arday oo aan waxba geysan oo dareenkooda muujinaya waxaana geystay dad aan Soomaaliland ahayn oo gacan ka xaq daran baa geystay ardayda waxaan u dirnay oo aan ku amarnay hawlwadeenada waxbarashada halka joogo iyo gobolka Badhanba in ardayda la soo qaado mid ka mid ah ayaa dhaawac halis qaba in la soo qaado oo isbitaalka ugu dhow lagu daweyn karo haduu ka ceergaabo daweyn karo iyo haduu burcaan la keenay hadii Hargeysa la keenaba iyo hadii dibad loo qaadayaba in aan ku dadaalo ilaahay baa wax badbaadiyay intaanu badbaadin karno aan ku dadaalo cidii waxa geysatana deelaamihii ku shaqada lahaaba Hamza Dabare Television Star Hargeysa.